كهورة أولاً وحن سلام يا مدكر كرير أوضل قيبة بالشدة كلا جديسن كجوجا إندير جرد عاقلين صلادين بقرة يجرادية به هرير هاي كبوحان مركب روح عن اسكو سلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات waxa la igu yeeray oo halkan u soo idinku aftaxaya waxaynu fadhino oo ah qadiyada maanta Soomaaliland ka taagan arinta ugu muhiimsan oo ah dadkii aan xilkan u dhiibanay ee loo dhaariyay ee Ilaahay wixii dhacaba kula xisaabtami lahaa hawsha ay qabteen inaan inaguna ku taageerno ku daba joogsano iyaynu soo ururnay arinta ugu weynina waxay ahayd saldhigga berbera golayaasha qaranku ay shalay si buuxa boqolkiiba boqol u ansixiyeen inaan inaguna bulshadii gobolka Awdal inagoo matalayna oo si baaha ana u fadhina si boqornimo iyo si dhalinyarnimo iyo si walba u fadhina inaan taageeradeena inaguna halkan ka muujino baan meesha wada fadhinaa waxaan idinku aftaxayaa anigu oo leeyahay waxaan ayidsanahay inaan talada golayaashu ay ansixiyeen ku taageersanahay annagoo aan awdalana u kala hadhin waxaan ku taageersanahay ansixinta ay saldhigga military ansixiyeen ayaan si buuxda u ayidsanahay taageerno saldhigga berbera laga bixiyay ay xukuumaddu bixisay ee labada goloon ansixiyeen baanu taageersanahay haddaanu nahay gobolka Awdal oqaashiisa salaadiintiisa iyo madax dhaqameedkiisa dhanba aad iyo aad baan u taageersanahay oo u taageeranaa gobolka ay gaadhay dowladdu ay gaadhay annagoo si buuxda u taageeranaa waxaan ilaahayna ka codsanaynaa oo ku darsanaynaa ilaahay waxa weeye dhulka abaar baa ka dhacday abaartan ballaarana baryaynaa wuxuu ku jiray in alabari loo cishaaro wax banaan weeye ilaahay waxaan baryaynaa inuu abaarta naga soo jabayna ilaahay baan baryaynaa in dowladdu ay ku baaqdo dee waxaan dhacay waa lagu baaqi jiray culimo ahaan wax hadlayana ma arkayno in culimaduna ku baaqdo in ilaahay la baryaa wax meesha yaalla weeye taa lafteeda waxaan leeyahay dowladdu ku baaqdo abaartana ilaahay naga soo jabiyo xildhibaanadu labada gole ee Soomaaliland guurtida iyo baarlamaanku si muglay u taageereen de kuwa fooriyayana way ku jireen waxaanu leenahay kuwa fooriyayay ha ka joojaan dalka propagandada ha ka daayaan kuwaana inta baan leenahay waxa weeye saldhiggu faa'iidooyin badan buu keeni doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wax badan baa laga faa'iideysan doonaa اعترافكي الدودوني بو بده كو كان نقون دوناي sidaaba darteed baan u taageersanahay madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha Soomaaliland waan taageernay waan u ducaynaynaa talaabada horumar kale ay wadanka ku soo kordhiyeen wax soo kordhaya waxba inoo soo kordhay dekadii baa loo sameeynaya hadii aan ku wax loo sameeynaya saldhig baa yaa la bixiyay saldhigaasi wax badan buu soo kordhinaya waxaan ku faraxsanahay sida sharaf kale ee golaha u ansixiyeen iyo sida loo soo agaasimay iyo aad ugu faraxsanahay waxaanu halkan isugu nimidnay haddaan odayaashii uqaashii gobolka Awdal nahay haddaan odayaashii kale aan nahay dhammaanta iyo halkaan maanta waxaan isugu nimidnay inaan taageerno saldhigga berbera ee ay saxeexeen labada gole ay ansixiyeen ee aqlabiyada ku ansixiyeen ee sida sharafta leh u ansixiyeen kaasaan horta haddaan gobolka Awdal nahay taageersanahay waanaan idinku raacsanahay baarlamaanka guurtida madaxweyne ku xigeenka ragga wadanka hogaaminaya dhammaan waan isku raacsanahay saldhigaas haddaan gobolka Awdal nahay taas وعلى آل سيدنا محمد نقول لبا هداي تلا تمادو نقول لو هيدو لها ابو كينا نقول لبا هداي تلا يمتو هيدو لها ابو كينا غير Awdal wuxuu hiddo leeyahay nabad iyo wajahagaagsan buu hadiya goor hiddo leeyahay isagoo oran madaxdiisa iyo dawladiisa ka hor iyo hiddo leeyahay tii baa wadnaa maantana tii oo wali ku dhagcadnahay tii wadnaa tuu kala fanqooqda ma lihin
waxaana hela kolkan anagu dhanka u hagaagnay nabadda aan ilaahay bay isku madba iyagu nabadda iyo dawladda ogolkeedii iyo yahay kuwa deemeeraha ka soo baxo oo wax wanaagsan oo nacaran lahayn malaha ma jire ka soo baxa jire arnaga dhima kuwaasoo war waxaynu helo waxaan de wax lagu dhereeriyo lagu diidaaba horta de wax muuqda maaha yaynaan waxna qabsan ummadda cidda wax qabanaysanayeenaan wax la yeelan horta de wax caqli maaha annagu waxaanu si mugle u soo dhaweynaynaa ummadda dalka ama ciidan ha keenaan ama ha keenaan shirkad ha keenaane wixii dalka wax ku soo kordhinaya marka mowqifka ay labada golo gaadheen ee madaxweynaha iyo madaxweyne xukuumadda maanta haysata ay la timid boqolkiiba boqol baan taageersanahay xagga laga juujuuleeyahay waana naga saldhigiyo maraakiib iyo mid dabaalnu arag xaggan luqayo noogu soo wareejiya bifadlan dad laynaysaba numa arage way ka keefeene soo wareejo saldhiga military base-ka luqayo iyo istiraatiijiyadda noo soo dhiga haddii kale madaxdaas waan ku ayidsanahay siday u soo dhigeen baan u ayidsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa weeye dawladdu wixii ay gaadhay ee labada gole gaadheen in la taageero oo dadweynuhu taageero Soomaaliland oo goboladu taageeraan yaan iskugu nimid annagu gobolka awdal haddaan nahay waan taageernay maxaa hadduu magaranaysaa isagu haysto dhul waxaa jira aan la isku haysan oo daboolan oo madaxweynuhu dhagax dhigay oo dawladdu dhagax dhigay ugu dambaysay noo keena gobolka awdal badihiisa noo keena kuwaasa yaa wax qabadka u baahan waxaad inuu maga isku haysatiin anagu waan isku ogollay waddankana waddan lagu wartamaya ma waa wadan dawlad leh oo shuruucda adduunka oo dhan dhamaystiray oo loo bagi weeyay 4 madaxweyne nabadgeliyo wanaag isku bedeloona muxuu ahaa laba cali ku wada hadal waxa ka suurtagal weeyday wadan iyo aqoonsan yahay Afrikaana oo waaweyn oo la ictiraafsan yahay ayay ka suuragal weeyday in la madaxweyne nabadgeliyo isku bedelaan halkana waxa ka dhacday 4 madaxweyne oo nabadgeliyo qalinka iyo xilka isku wareegay oo laba cali ku wada hadal taa hadaba layna laba qabo iyaynaan garan wayn maslaxada Ilaahay nasiiyay iyo nabadgelyada Ilaahay nasiiyay iyaynaan garan wayn war wadanku dawlad buu leeyahay madaxweyne ku xigeen buu leeyahay saddex gol qaran buu leeyahay ummad kale oo la taliso salaadin iyo cuqaal buu leeyahay ninka maanta diiday muxuu ahaa waxay soo kordhay wadanka oo soo kordhay waxaan leeyahay in habeen jiray maaha horta ninkaasna habeen jiray maaha madaxweynaha qaranka mudane maxamed maxamuud siiraayo iyo madaxweyne ku xigeenka mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylixi iyo saddexda gol qaran ka wasiirada ka guurtida ka baarlamaanka ay intuba arrimahani uga bareereen inay maxaan ku uriyay ummadda Soomaaliland u keenaan saldhig 25 sanadooda haddaan aynu gobolka awdal waan eegaynay ragay siriirtiyay meesha ka gudugudule hadalkuna u badnaa hase yeeshee anagu waxaan iska ogeyn xukuumaddu inay hawsheeda ay marayso hawsheeda inay qabsanaysaan iska ogeyn ninkii hadlayaaba dee isagaa iska hadlay xukuumadda hawsheedii way qabsatay aad iyo aad baanan maxaan ku ugu hambalyeeynaa sidaasaan annaguna ku ayidsanahay ku garab joognaa ku taageersanahay 25 sanadood tiraadeen war way nagu yar tahay 50 sanadood ka dhiga saldhigu 50 sanadood ahaado hay noo joogaan hay nala fadhiyaan war wixii meelaha inooga gudhagdhaa iyaga bay naga celin ciidamada maxaan ku dhahay carabtay walaaleeni inaan halkan ka hambalyeeyno ama baaq caafimaad qaba aan uga dirno xukuumaddu go'aankii ay soo hordhigtay golaha wakiilada golaha wakiiladuna si aqlabiyada ay u ansixiyeen ayaan horta aad iyo aad halkan ugu hambalyeynaa taanu nimidna waa taa waxaan leenahay xukuumaddii de Soomaaliland loo idmaday kullay inay deeqday baan u maleynaynaa kolka xagga horumarka laga eego iyo wax ka qabadka dalka aad iyo aad bay wax badan uga qabatay
waxaan jecelahay inay sii wato saldhigga military ay imika maanta la ansixiyeyna aad baan ugu faraxsanahay